شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد ثبت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. walaalayaal ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala nagu kulmiyey qolkan barakaysan oo khayrka la isugu kaalmeeyo. kelimada insha allahu tacaala kooban oo aan rabo insha allah inay bidaaye u noqoto kelimaad insha allah marar badan aan geli doono waxay tahay waxaan ognahay waxaan ugu soo foolay bishii ramadaan. waxaa muhiima marka qofka muslimka ah inuu isweydiiyo seen ku qaabilnaa bishan, maxaan bishan kusoo dhoweynaa, kayfa nastaqbilu ramadaan. waa arrin muhiim ah oo qofka mu'minka ah la rabo inay la weynaato. waxa weeye walaalayaal, nicmooyinka ilaahay uu noo galay faraha badan oo haddii la tiriyo aan la koobi karin oo nicmatul iimaan ay ugu horreyso ayaa waxaa nicmooyinka waaweyn ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sameeyey mawaasim iyo waqtiyo fadli dheeraada leh oo qofka mu'minka ah cibaadaadka uu sameeyo ilaahay u labalaabayo, dunuubtana ilaahay kaga dhaafayo subxaanahu wa tacaala. haddaba bishan ramadaan waa bil barakaysan weeye, waa bil ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ugu talagalay addoommadiisa mu'miniinta ah in ay wixii dunuub ana isaga daadiyaan, dembi dhaaf iyo maghfiro iyo raxmad iyo jannana ay ku helaan. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nafaxaadkiisa iyo nicmooyinkiisa waaweyn oo ugu talagalay dadka mu'miniinta ah oo cuqaasha ah oo wax garanaya inay ka faa'iidaystaan. waa arrin marka muhiim ah qofka muslimka ah inuu bishan weyninkeeda iyo qadarkeeda uu siiyo. fursad weyn weeye in qofka mu'minka ah uu soo gaaro bil ramadaan, ilaahay soo gaarsiiyo. haddaba walaalayaal, waxyaabaha la raba in bishan ramadaan lagu soo dhoweeyo waxaa ka mid ah kow, inuu qofka ku dadaalo ducada inuu ilaahay gaarsiiyo cimriga u dheereeyo subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay haddii ilaahay cimriga kuu dheereeyo ku soo gaarsiiyo bishan ramadaan oo aad ka faa'iidaysato, ilaahay khayr buu kula doonay aakhira iyo adduunba. maxaa yeelay walaalayaal, qofka marka cimrigiisa uu gaaro arrinkaasi oo cimrigiisa uu maaragtay waxa weeyaan uu maaragtay ramadaankii u gaaro, qofkaasi maaragtay waxa weeyaan waa qof guulaystay weeye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay cimri dheer iyo cibaade iyo khayr iyo wanaag uu siiyo weeye. waxaa jiro dad badan oo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta ah oo sanadkii hore soonkii soomay oo joogay oo maanta nasiib aan u yeelanin. taa marka waxay adiga ku siinaysaa fursad iyo nasiib. nebigana wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka mu'miniinta qofka ugu khayr badan, ugu wanaagsan, ugu fadli badan waa qofka ilaahay cimri dheer siiyey, camalkana u wanaajiyey. waatuu lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu tirmidi iyo sunanta ay soo saarayeen saxaabigii jaliilka ahaa abi safwaan cabdillaahi ibnu busr al-aslami nebiga uu ka warinayey oo nebiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey dadka yaa ugu khayr badan, nebiga wuxuu ku jawaabay: khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasuna camaluhu. dadka waxaa ugu khayr badan qofkii cumrigiisa dheeraado, camalkiisana uu wanaagsanaado. marka haddii ilaahay ku waafajiye ramadaan ood ka faa'iidaysatid, waad ka fadli badan tahay, ka wanaagsan tahay qof dhintay oon soo gaarin. soomaalit waxaa laga yaabaa inaad ka hormarto. nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yimid saxaabigii la oran jiray talxa. markaasaa wuxuu u sheegay riyo uu ku riyooday talxa. riyadaa maxay ahayd? riyadaa waxay ahayd talxa ibnu cubaydillaahi ninkii la oran jiray, saxaabigii la oran jiray jaliilka ayaabaa wuxuu leeyahay ana rajulayni qadima calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam wa kaana islaamuhumaa jamiica. laba nin ayaa nebiga u timid oo islaamka maaragtay waxa weeyaan iskumar soo islaantay. soo maartid وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه. لبدو مد عبادة بدنا أو اجتهاد بدنا أو كان كلا عبادة بدنا نينك عبادة بدنا فقزا المجتهد منهما ودون نينك أصيعها أو أرنك مارتي وحوي وديار من ملقرة. ما يقول ملقرة. شيخ أبو فضل
جزاك الله خير شاء الله هذا عفوا marka labadii nin nimkii mujtahidka ahaa dadaalka badnaa oo maartay cibaadada badnaa baa duulay jihaad buu galay fastushida wuu shahiiday ثم مكث الآخر كيكلا ونجاد بعده سنة بوسين ولا كيكلا ثم توفي ومرك الله أفصل أسجنا وادنتي أو الله أفصل مركز أيا طلحة وكرش كشكين يا شيخ كذا طلحة وحليه فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة وحنكو أركي ريو قفك الرياضة وحريضة كواركو أنا الباب كجنة تايم بان أركي إذا أنا بهما وقد خارج من الجنة أنا وميش تايم بان جنة كصباحي ومرقوي مركز فأذن للذي توفي الآخر منهما ننكي الضنباء أو أن عبادة بدنين أو أن شهيدين باجنة الله فصحين وقلب دودنا وحي ثم خرج فأذن للذين استشهد هذا لو جنة بركون نيكي جاي وصار نقول أنا يمد بيري ننكي كلا أو سو شهيدي وقليل هذا الجنة ثم رجع إلي فقال لي ارجع لابد بايسو نقطه markaas waxay ugu dhahan buuri irji adiga noqo dalxa maxay yeelay fa innahu lam ya'ni laka ba'd waqtigi lagu idmilaha wali lama gaarin jannada adiga amri khala iyo waxba ku soo dhiman markuu waa barista dalxa subaxi ayuu arinkii oga sheekiyay saxaabadii iyo dadkii faajibu lidalika arinkii bay la yaabeen oo maxay la yaabayeen warsaan ninkii jihaadka badnaa oo dadaalka badnaa oo shahiiday saan ninkii kale ma taqaanay oo aan shahiidin oo aan dadaal badnayn cibaado badnayn سابوا جنة أو هرجلي كرا أرنكي مركز رسولك أشهد صلى الله عليه وسلم مركز النبي وحكيري من أي ذلك تعجبون وما أرك علي يا بنتي مركز يا قالوا يا رسول الله هذا رسولك إلهي ومحيل هذا كان أشد اجتهادا كان وكذا البضنا وون الشهيدي وإلهي ترتيب الشهيدي جنة ولا هرجلي سيار أنت أود عليه مركز النبي وحكيري وماشى أسعده أليس قد مكث هذا بعده سنة ونكان ميوسن نك كدب بين سنة بوكيل النبي عليه الصلاة والسلام الكاسر دهن قالوا بلى ها نبي وحكيلي وأدرك رمضان فصامه صوم كميوسها ليلين أو ميوسن سومي كاسر دهن ها قالوا مركاسر دهن نعم مركاسر النبي وحكيلي وصلى كذا وكذا سجدة في سنة انت أصو سنة تكنها سنة انت أصو جربوا السجود أو تكذي أو أمارتي وحوي سموسا سجودين بتكن ها رسولك إلهي محامرك أولياء بنتين بوري فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض أركي يروك أنت سجلان بينك سجلان بوري حديثك محل قاعد قاعدنا يا قفك إلهي عمري سيو أو رمضان سو قال سيو أو صوم أو كفى إيديستو إنه كون أكسنها كأجر بديها قفك ما أردت هذا مركب ولا شيء مسلم ده ولا كمسلم كأصون كمحل وجوس دوية صون كوحيابها الوجوس دوية ما هسير ضد بدن أي موذان ومسلمين تكملها إن راشين بدن إيه شراب بدن إيه عنطب بدن إيه إلا الديارية معها لكن أرنك وحوي إن صونك الوسط دوية كو وحلي هذا التوبة إلى الله إلهي إن الله صنع سبحانه وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى توبة نصوحة على رجيمان يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم توبة غفور الرحيم ورمضان هكوسو قال أضو قلبي سافي كده وقلبي متقنا وحاول نذيفيه oo maartay iska maartay waxay dunuubtii oo dhan iska tiray ramadaan ha ku yimaado soo maartay markaas marka khayrka qalbigaaga uu aqbali ilaahay wuxuu leeyahay adoomada muuminiinta ahow ilaahay u toobad keena toobad nasuuxa ah wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala adoomada dambiga maartay ku xadgudbay oo naftooda ku xadgudbo dambi ka badiyo haka quusanina naxariista ilaahay waa qafuurur rahiim inna allaha yaghfiru dhunuba jamii'a innahu huwa al-ghafurur rahiim وشيء مركب مهم قفك مؤمن إنه إلهي أتوكله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قفك الدنبابة وعمل حسن مية والظلم الجلا نفتي سظلمية قفك أصدق هدو إلهي النقضة إلهي وما رتكيليا كتيس الدمداف بوكيليا وطولها حديث القدسي النبي عليه الصلاة والسلام يا إلهي وحولي يا ابن آدم إنك أديك ما دعوتني أنت بريسد ورجوتني أديك رجينيس الخير وناك غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي وانكود مدافع وح الله وحي دنبي أو أتميس وانكود دافع مركا ودن مدافع قفك إنه إلهي بريكو لبا قفك إنه متقن وحويا عبادة معناته أنت سن إيمان رمضان كإنه إلهي أطوت كان سبحانه وتعالى
ducadana waa shay muhiim ah weeye qofka hadduu ilaahay baryo oo uu yidhahdo allahuma balliqnii ramadaan waxaa laga yaabaa ducadaasi inay qofkii xataa ajashiisi dib u dhigto oo qofkii ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan naxariistiisa uu u siiyo u kaadiyo waqti uu siiyo waidaa sa'alaka cibaadii canii فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وشيء مركب مهم أوي مركب إن شاء الله تعالى إن بريض الله بضيه اللهم بلغنا شهر رمضان إله بشهر رمضان الجارسي قفك إنه كل عليه وشيء مارتي وحويا آد مهم أوي قضب كلبات وتوبت كان كوي قفك إنه إلهي أطوبت كان سبحانه وتعالى قضب كسدحات ومهم كأ qofka muslimka ah bish ramadaan maadaama ay soo gelayso waa inuu cilmi u yeesho atacallum ahkaam ramadaan ahkaamta ramadaanka qofka inuu barto weey soonka maxaa buriyo soonka maxaa waxa weey maartay laga rabaa qofka muuminka maxaa sunnooyinkiisa maxaa waajibaadkiisa soo maartay لأن عند بداية شهر تعلم ما لا بد منه من فقه صيام وأنا قفك فقه وحكى برتوي سو مارت أحكامتي سنو برتوي آدابتي سنو برتوي والعبادات مارت وحويا صونك كو خريرت انو برتوي قفكا اعتكافكي عمرتي زكدي زكاه الفطري اهيد وحيابها سودان واتي نبيغا اولها عليه الصلاه والسلام طلب العلم فريضه على كل مسلم حديثكي صحيح جامع صحيح شيخ الباري وكو كينهي قفكا مؤمنكا مسلمكا waxa waajib ku ah inuu barto cilmiga inuu barto weey cilmigana mar waxa jira uu waajib yahay barashadiisa qodobka kale waxa weeyaan oo soonka waxyaabaha lagu soo dhaweeyay kamid ah qofka inuu caziimo iyo hima caaliya inuu yeesho inuu ka faa'iideysto bisha Ramadaan qalbigiisa inuu ku xirto fasax u soo qaato quraan akhriska badiyo cibaadada badiyo masaajidka laazimaadkiisa badiyo xumaanta iyo xanta iyo qurunka iyo baqtiga inuu ka tagayo qalbigiisa gashado waxyaabahaas oo dhan marka qofka arrinka uu la yimaado ilaahay uu u fududeynaya wadooyinka khayrka u fududeynaya والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وطولها الله سبحانه وتعالى فلو صدقوا الله هذي ذكرهم إلهي أشيء لهايين ووحي قبنا يعني أي كرم شيء لهايين لكان خيرا لهم صاصة أو خير بدنا لهاي مركب كل ذا العزيمة إنا قادت القرآن إذا قادت معلومة يربى حري صون كانوا معلومة كوبان وي معلومة هن كوبان صدق كبريمال اسكو صحر خير كشقي وناقم كشقي مالك لها آدي خير كبتصو دعوة كل ذا دين إلهي برشيد كل ذا مساجد اعتكاف كل ذا حنت إيه حمانت إسكده حجاب كاقعد كيسون نكاقع باري ونقو حمانت إسكده ضدك إسكعفي قلبي قفر waxyaabaha soo dhan waxay ku sahlaysaa inaad ramadaanka aad ka faa'iideysatid inaad ramadaanka ka faa'iideysid oo bisha ay noqoto ramadaan bil khayr badan inay ku noqoto ilaahina qofku soo waafajiya oo bisha ramadaan ilaahi subhanahu wa ta'ala soonkeeda uu ka aqbalaa waa qof liibaanay weeye aaqiray adduun maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka marka uu afsoomo oo soonkiisi laga aqbalo oo ilaahay uu ka aqbalo subhanahu wa ta'ala inuu jisihiisa uu yahay janno wax kale uusan ahayn marka arrin aad u weyn weeyaan oo muhiim ah qofka muslimka inuu ku dadaalo bisha markay dhalato inaad ducaysatid ilaahay inuu khayr kuugu dhaliyo bisha oo ilaahay subhanahu wa ta'ala kuugu dhamaayo waxay ahaayeen saxaabadii iyo nabiga caasa markay arkaan bisha ramadaan ama bisha dhalashadeeda waxay dhihi jireen allahumma ahlihi alayna bil yumna wal iimani was salamati wal islami rabbi wa rabbaka allah ay dhihi jireen marka qofka inuu u diyaar garoobo oo ma aragtay waxa weeyaan ma aha bishan bil raashin iyo maaragtay faakiho iyo maaragtay cayaar ma aha bishan waa bil waxa weey cibaado weey bishan waa bil tamriin iyo maaragtay tareerin weey bishan waa bil qofka muslimka toobada uu badiyo oo ilaahay u toobad keeno للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله ربه ولا فرحة كجرته مركه وافرى قفكي وكو افري وكو فرحي عبادتي خيرك وسمي marka uu mataqana waxa weeye bisha ramadaan uu maaragtay waxa weeyaan ilaahay la kulmana soonkeedii buu ku farxayaa marka waa arrin muhiim ah oo aad muhiim u ah soo maartid waxa ku jiro bishan habeen hadaad ilaahay ku waafajiyo khayr oo dhan aad helayso oo ka khayr badan 82 sano man qaama ramadana iimanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi qofkii ramadaan istaago ilaahay waafajiyo iimaan iyo ihsaan احتساب سو قلبي جيس كجران إلهي دنبي جيس وادافع سبحانه وتعالى وحي وهرمر صدق دنب إلهي دافع سبحانه وتعالى وحنا مركنا عنده ولا لها مسلمات كأي مسلمين تا أن كود ذلنا بشهر رمضان إن شاء الله تعالى أرمها حسنا أن كسر دوينه إن شاء الله تعالى رمضان قد حديثنا مع حضرات كرأيان إن شاء الله كلمات بنجلد دونا وقت يدان وكان إن شاء الله أنت أفرك الجارين إلهي وحول دي سنة إنه بشهر رمضان الجارسيو إلهنا سبحانه وتعالى مارتي وحول نقدر يقوك فائديستو جزاكم الله خير وبارك الله فيكم aad baan maaragtay runtii waqtiga oo cariiri aan oga xumahay
إن شاء الله تعالى وقت يكرا وواسع ينهي الدنا. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.